وكلنكي قلها وزيرة دولة هيرشبيلة وحاو مانتا كقبصومي مقالة جوهر اي عاصمة هيرشبيلة وانا كلن سيدا عادي قبصوما احد ولبا وحانا سيد قدومينيي مدحوينة كحيقانكا دولة هيرشبيلة اهنا كسيمها مدحوينها هيرشبيلة مدن علي قدلاب حسين كلنكا ayaa looga hadlay inta uu soconayay arrimo fara badan oo la xiriiray xasilinta amniga iyo sidoo kale kaabayaasha dhaqaale golaha wasiirada dawladda Hirshabelle ayaa ku ansixiyay kulankooda miisaaniyadka 2019 madaxweyne ku-xigeenka dawladda Hirshabelle ahna kusimaha madaxweynaha dawladda Hirshabelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa ku dhawaaqay natiijada miisaaniyadka 2019 dowrkana waxa ansixiyay 20 iyo laba wasaaradood ansixisay waxa diiday 4 wasaaradood sidaas oo asigana sax ku yoogu dhinaca kale afhayeenka dawladda Hirshabelle mudane Daawud Xaaji Cirro ayaa warbaahinta la hadlay kulanka marka uu soo gabagaboway waxaana uu faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii kulanka golaha wasiirada dawladda Hirshabelle ay uga hadleen waxa kulankoodii toddobaadlaha ahaa maanta isugu yimid golaha wasiirada ee dawlad goboleedka Hirshabelle kulankan waxa shirku doominayay madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedka Hirshabelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe kulankan waxa aad looga dooday wasaaradda maaliyadda dawlad goboleedka Hirshabelle oo toddobaadkii hore golaha wasiirada ee dawladda u soo bandhigtay laba xeer oo ah miisaaniyadda dawladda Hirshabelle iyo xeerka hanti dhawrka dood dheer oo golaha wasiiradu ay ka yeesheen labadii toddobaad ee ugu dambeeyay waxay maanta golaha wasiiradu aqris badan kadib ay isla garteen in la ansixiyo miisaaniyadda dawladda ee sanadda 2019 oo ay ku ansixiyeen cod aqlabiyad leh sidoo kale golaha wasiiradu waxa ay maanta ay ansixiyeen sharcigii hanti dhawrka oo runtii golaha wasiiraduna iyaguna sidoo kale mid lamid ah ay cod aqlabiyad leh ee ku ansixiyeen waana aragtaan oo miisaaniyadii dawladda ayay ansixiyeen golaha wasiirada shirkoodii maanta sidoo kale shirka maanta inta uu socday golaha wasiiradu waxay ugu doodeen arrimaha ugu horeeya oo amniga ay ka mid yihiin waxa looga hadlay arrimaha amniga oo ay ugu horeeyaan sida xaaladda Hirshabelle amnigeedu ay tahay qorshooyinka iyo howlgallada la qorsheynayo ee dhawaan la filayo in ay dhacaan wasaaradda amniguna waxay runtii warbixin dheer ee golaha wasiiradu ay ka siisay weeraradii xagga cirka ahaa iyo kuwa tooska ahaa 8 bishan habeennimadii Jimcada ahayd ciidamada commandoska ay ku qaadeen deegaanka Gamboole degmada Gamboole ee gobolka Shabeellada Dhexe halkaasoo lagu dilay horjoogayaal ka tirsan kooxda ummadda Soomaaliyeed dhibtay ee Al-Shabaab runtii burburina loo geystay talisyo halka ay ku lahaayeen Gamboole degmada Gamboole waxay shabaab ku lahaayeen talis weyn waxay ku lahaayeen maxkamad dadka ay si sharci darro ah dadka xoolahooda ugu kala xukumaan waxay ku lahaayeen xabsi ay dadku ay ku xiraan masaakiinta ah halkaas waxa soo dhan runtii cagta la mariyay oo ciidamada commandoska oo kaashanaya saaxiibadood ayaa runtii cagta mariyay duqeymo ayaana runtii lagu dilay saraakiisha ama horjoogayaasha shabaabka ah waxa meeshaas lagu dilay sida anagu xogta hadda nagu soo gaartay madaxii maaliyadda ee kooxda Al-Shabaab nin magaciisa lagu soo gaabiyay Xudayfa ayaa halkaas lagu bartilmaameedsaday waxa lagu dilay ku-xigeenkiisa madaxa maaliyadda waxa sidoo kale lagu dilay horjooge u qaabishanaa kooxda shabaabka dhinaca dacwada oo waxa uu runtii dhalinyarada Soomaaliyeed siin jiray tala ah inay isqarxiyaan halkaas ayaa lagu beegsaday waana guul u soo hoyatay guud ahaan dadka Soomaaliyeed waxaana runtii Hirshabelle ay soo dhaweynaysaa kooxaha cadawga ah meel kasta ay joogaan in lagu bartilmaameedsado shirkii golaha wasiiradana arrimaha ayaa looga hadlay haba ugu weynaatay ansixinta miisaaniyadda iyo sharciga hanti dhawrka ee dawladda
fiican laga qaaday aniga